sidee ku bilaabi kartaa dropshipping haddaadan u haynin lacagta xayeysiiska facebooka waxa kaliya ku banaan markaas waxay tahay inaad isticmaashid qaab organic ah oo instagram ah marka koobaad waxaad aadaysaa instagramka kadibna waxaad raadinaysaa waxaad ku qoraysaa instagram made me byte adigoo raadinayo muuqaalo instagram oo dropshipping ka hadlayaan muuqaalo maaragtay dhalinyaro ay sameeyeen oo iska duubeen oo maaragtay ay ku xayeysiinayaan shay kadib markaa pagekooda gashid waxaad fiirinaysaa viewska ay helaan intuu leegyahay iyo sidoo kaleeto muuqaalada ugu dambeysay soo dhigeen waxaan ilaa hadda weli may soo dhigaan productigan ama way iska dhaafeen haddii aragtid in muuqaalada ay soo dhigayaan ay yihiin muuqaalo maaragtay views fiican helayaan waxaad samayn kartaa inaad ka soo xadid muuqaaladooda maraan kuley ka soo xad macnaheedu waxay tahay waxaad ka soo xadaysaa qaybta waa ka soo xadaysaa laakiin adiga kaaga waxa u horumarsiinaysaa hook ayaa u samaynaysaa hook waxa waaye waxyaaba maaragtay muuqaalka marka koobaad ka dhigaya in qofku sii daawado oo maaragtay attention siinaya muuqaalka kadib waxaa laga yaabaa inaad maadaama instagramkaaga cusub yahay inaad soo dhigtay 3 muuqaal 4 muuqaal maalintii kadib chanceskaga ayuu kor u qaadayaa oo waxa ku noqonaysaa inaad noqotid viral ku noqotid muuqaalkaagi markuu viral noqdo waxaa helaysaa free traffic oo maaragtay bio ayaa soo dhigaysaa linkiga storekaaga storeka waxaan saan sheegay waxaad isticmaali kartaa AI kadib dadkii traffic ahaa badankooda ma convert gareynayaan sababtoo waxaa laga yaabaa inay joogaan kala meel adduunka laakiin kuwa convert gareeyaan waxaa waaye lacag bilaash ah oo kusoo gashay maadaama aadan ka bixinin wax xayeysiisa soo ka faa'iidaysto fursaddaas waxaa isticmaashaa Instagram organic dropshipping